alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Waxaan rabaa inaan meeshaan kasoo jeediyo presentation yar oo aan rabo inaan Soomaaliya haddaan nahay aan awoodi karno haddaan isu tagno oo ilaahayna tawfiiqda una waafajiyo inaan noqon karno dadka dhaqaalaha adduunka hogaamiya si sahlan oo aan maaragtay gacan qabsasho aan u baahannahay oo yacni tafaraaruqa iyo isfaham la'aantan aan ka baxno. Ma og tahay inaadan ogeyn waxa aad tahay haddaad Soomaali tahay? Ma og tahay inaad faqiir hodan ah tahay oo maalqabeen ah? ma og tahay 12 milyan Soomaali ah inay boqolkiiba 75 ay dhalinyaro yihiin? ma og tahay in 1 milyan oo damiir leh oo ay dal iyo dadba si sahlan u bedeli karaan? ma og tahay in 1 milyan oo Soomaali ah maskax fiyow la heli karo? ma og tahay in halkaasi milyan ay faqriga iyo jahliga si sahlan u baabi'in karaan? ma og tahay 1 milyan oo maalintii isku darsada nus dollar ay noqonayso 500 oo milyan maalin walba hadduu alla tawfiiqda waafajiyo? ma og tahay inuu nus dollarkaasi bishii noqonayo 15 milyan oo dollar? ma og tahay inaad ku jirtid gumaysi aadan ogeyn oo aadan arkaynina cidda ku gumaysanaysa? ma og tahay in mustaqbalka madow lagula maagan yahay oo adigana aadan ogeyn? ma og tahay inaad dhaqaale ahaan aad gumaysi ku jirtid? ma og tahay inay dadyow kaa liita ka caqiida xun ay ku gumaystaan? ma og tahay in xorriyadda iyo haybadda aad leedahay ee kaa luntay soo celinteedu gacantaada ku jirto? ma og tahay haddaad u kacdo inaad soo celiso xorriyaddaada iyo haybaddaada inuu Allah subxaanahu watacaala uu ku garabgalayo? haddaba lacagahaasi faraha badan ee aan soo sheegay ee 15 milyan bil walba soo xaroon kara maxaa lagu samayn karaa? waxaan maalgelin karnaa kalluunka, qalabka beeraha, wax soo saarka beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta iyo qoraxda iyo dabaysha laga dhaliyo. haddaba aan hal u dul istaagno mashaariicda noocaasi waxa gelayo iyo waxa ka soo baxaya intay la eg yihiin bal aan isla eegno. ma og tahay in hal markab oo wata warshadiisa kalluunka habayso ama process garayso oo qiimo ahaan uu joogo ugu badnaan 10 milyan oo dollar, adiguna 15 milyan ayaad bil gudaheeda ku aruursanaysaa? ma og tahay in markabkaasi hal bil gudaheeda aad ku iibsan kartid sababtoo ah 15 milyan ayaad hal bil ku uruurisay oo hadday ishelaan 1 milyan oo Soomaali ah oo iswaafaqsan? ma og tahay markabkaasi inuu maalintii keeni karo ugu yaraan 10 tan ama 100 tan ama 100,000 oo kiilo oo kalluun ah oo habaysan oo weliba kaartoomaysan? ma og tahay in markabkaasi uu leeyahay bakhaar weyn ama storage oo freezer ah oo qaboojiye ah oo markii ugu yaraan uu leeyahay 1,000 tan oo kalluun ah ama kaartoomo kalluumaysan uu qaadi karo oo makuun habayn karo intuu ka imaado markabkii kale ee lagu wareejin lahaa ama yacni keeni lahaa tikada ugu dhow oo isaga rogi lahaa? wuxuu leeyahay warshad weyn oo nooc walba u samaynaysa kalluunka, hadduu ahaan lahaa gasacado, hadduu ahaan lahaa mid baakadaysan ama kaartoomaysan? ma og tahay haddii halka aan ka soo qaadno halka kiilo oo kalluun ah oo aan qiimo ahaan u soo qaadano inuu yahay $2 oo keliya oo meesha ugu hooseysa aan ka soo qaadnay in
maalintii oo markaad ku dhufato labadaasi dollar boqolkaas kun oo kiilo maalintii keliya aad heli kartid 200 oo kun oo dollar oo bishii markaad 30 maalmood ku dhufatana 6 milyan oo dollar ku soo xaroonayso markaad 12 bilood ku dhufato sanadkana oo ku noqonayo 72 milyan oo dollar waa hal markab oo hal bil lacagteeda aad ururisay aad ku iibisay markabkaasi waxaan ognahay kalluunka maantadan ee habaysan ee baakadaysan ee supermarketyadana lagu iibiyo halkii kiilo inuu yahay 6 dollar annagana aan 2 dollar kaliya ka soo qaadnay aad markaa waxaad ku abuuraysaa 72 milyan oo dollar waa nus dollar markuu jeebkaaga ku jiro aad faqiir ka tahay markaad isku darsataana aad taajirkaa dhigaya ma ogtahay haddii 4 bilood markab ku iibsato haddii 4 markab aad ku iibsato nus dollarka 3 bilood aad ururisay ilaa waa 60 milyan oo dollar waa 3 bilood markaa 15 milyan aad ururisay oo bil walba ah oo nus dollarka maalin walba aad bixinaysid afartaasi markab marka aad ku dhufato min 72 milyan waxaa ku soo saarayaan 288 milyan oo dollar waa sanadkii 4 markab ma ogtahay in 120 shaqaale ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay shaqo ka helayaan markabkiiba oo 60 markiiba 60 qof oo dhalinyaro ay fuulayso si ay warshadaasi uga shaqeeyaan oo qalabkaasi kalluunkaasi la baakadeynayo ay baakadeeyaan oo kadibna ay isbuuc kadib ama bil kadib ay ayaga nastaan oo 60kii kale ay soo bedelaan 60ka intay nasanayaan ay shaqeeyaan oo kadibna saa ay soo bedeshaan aan u imaano qalabka beeraha ma ogtahay in nus dollar aad halka maalin bixisay uu bishii ku iibin karo 150 cagaf oo noocyada adduunka ugu qaalisan ah iyo qalabka kala duwan ee beeraha lagu falo waa marka aan u qaybino 80,000 oo dollar inuu yahay halkii cagaf oo noocyadan Hollandeeska ah oo heavyweight ah oo aad maaragtay u shaqeynaya marka aan soo iibsano ma ogtahay inaad bil gudaheeda aad ku soo iibsan kartid 125 oo riiga ceelasha lagu qodo ah markaad 15 milyan u qaybiso 120,000 oo dollar ala riig inuu yahay ma ogtahay inaad leedahay dhul beereed baaxad weyn oo aan webiyada u dhaweyn oo bil walba gudaheeda aad ka qodi kartid haddii adiga aad awoodo 300 oo ceel kadibna dalagyo badan oo baaxad weyn aad ku beeri kartid dhulkaas webiyada ka fog oo aad ka soo saari kartid ma ogtahay nus dollar bil gudaheeda aad ururisay in ay ku dhisi karto 120 xarumood oo cilmi baaris ah oo ha ahaato cilmi baarista beeraha ha noqoto cilmi baarista kalluunka ha noqoto cilmi baarista macdanta ha noqoto cilmi baarista daawooyinka iyo dhirta iyo wax walba oo cilmi baaris u baahan sida socialka oo kale iyo sida ummadda loo bedel lahaa maskaxdooda oo looga dhigi lahaa wadaniyiin wadankooda jecel oo horumarsan kara oo qabiilkana laga baabi'in karo oo researchkaasi uu sameyn karo daatadaas uu ururi karo xarumahaasi kadibna ay u bedeli karaan mashaariic wax soo saar leh aan u imaano dhinaca wax soo saarka beeraha kii hore qalabkii ahaa kana wax soo saarka beeraha aan u imaano ma ogtahay inaan haysano in ka badan 8 milyan oo hektar oo dhul beereed ah oo noocan irrigation ka leeyahay webiyada dhinacyadooda ku yaala 8.2 milyan ayaa lagu qiyaasay markay ahayd 8meedii dhamaadkeedii markii dawladdu dhex jirtay hase yeeshee lama tirinin dhul beereedka ka fog webiyada ayagana ma aragtay noqon kara 20 milyan oo hektar laakiin marka aan ka soo qaadno 8 milyan oo webiyada dhinacyadooda kaliya ah waxaan awoodi karnaa inaan wax walba ku samaysano ma ogtahay haddii cilmiga casriga ah la isticmaalo in halkii hektar oo laga soo saari karo 5 tan oo galley ah galleyda kaliya ayaan tusaale u soo qaadanaynaa annagoon dalagyada kala fiirinin ayaan galleyda kaliya marka aan beerno iyo waxa ka soo baxay kaliya aan arkaynaa 5 tan micnaheedu waxa waaye waa 50 kintaal oo galley ah adduunka kale waxaa laga soo saaraa
ilaa 19 tan ayaa la gaarsiiyey oo galleyda in laga soo saari karo halkii hektar. marka aan fiirino halkii hektar in macnaha halkii kiilo oo galley ah oo suuqa average ahaan uu ka joogo $0.5 marna wuu ka bataa marna wuu ka yaraadaa laakiin average ayaan u soo qaatay $0.5 inuu yahay halkii kiilo. marka halka kiilo uu $0.5 yahay markaan ku dhufano 5 tan ama 5,000 oo kiilo waxaa noo soo baxaya halkii hektar inuu noo beeri karo inuu noo soo baxayo 500 oo kiilo 500 oo dollar meesh ala tankii halkii tan inuu 500 oo dollar u yahay oo marka halkii hektar ay noo soo baxayso 2,500 oo dollar. bal fiiri haddaan ka soo qaadno 8 milyan aan leenahay oo hektarada oo irrigationka ah 1 milyan kaliya haddaan hal siisa ama hal xilli oo 3 bilood ah aan ku beerno galley 1 milyan oo hektar haddaan galley ku beerno waxaa noo soo baxaya 5 milyan oo tan oo galley ah. marka aan ku dhufano 500 markaan ku dhufano oo ala tankii ah waxaa noo soo baxaya 2 bilyan iyo 500 oo milyan oo dollar oo 3 bilood gudahood aad ku heshay oo $0.5 aad adigu bixisay. marka jaabka uu ku jirona faqiir uu ka dhigayo marka aad dadka walaalaha kale la wadaagtidna lacagahaas faraha badan ku soo saaraya. ma ogtahay haddii dalagyada kale la beero dakhliga sida galeydii sida maaragtay misigadii maxaan ku iraahdaa bariiskii suufkii khudradii iyo waxyaabahan saliida la cuno laga sameeyo sida gabaldayaha iyo wixii la mid ah iyo khudaartii maxaad malaysan karaysaa lacag fara badan oo caqligaaga ka weyn ayay meesha kaaga soo baxaysaa. ma ogtahay in dakhligaasi xajmigaasi intaas la eg oo ka yimid $0.5 aad maalin walba adiga bixisay oo aadna wax ku soo kordhinaynin waxna ka dhimaynin oo haddii la helo amaano iyo dad sumcad leh anoo imaano kaabayaasha dhaqaalaha. Soomaaliya waxay u baahan tahay 3 wado oo highway ah oo waaweyn waxayna kala yihiin 3daasi wado sida hadda aad arki doontaan. wadada u dhaxaysa Xamar ilaa Hargeysa oo cabirkeedana uu yahay 1466 kilomitir. wadadaasi waxa halkii kilomitir oo highway ah oo markiiba isku dhaafi karto 6 gawaari waxaa dhisaysa 430,000 oo dollar waa halkii kilomitir. ma ogtahay guud ahaan lacagta ku baxaysa wadadaasi inay dhan tahay 630.38 milyan oo dollar. ma ogtahay in 30 kilomitir walba laga sameyn karo toll collection ama goob lacagta lagu aruuriyo oo gawaarida isdhaafaysa mid kastaba uu lacag meesha uu ka goosanayo oo kaarna ku furanayo albaabka oo laga aruurin karo oo ala gaari markaan average ahaan u soo qaadano $2 kaliya uu bixinayo oo markaasi bishii ay ka soo xaroonayso 49 toll collection marka loo qaybiyo 30 kilomitir wadadaasi 49 toll collection ama goob lacagta lagu aruuriyo ka soo baxayso 4.41 milyan oo dollar bil walba. ma ogtahay wadada Xamar ilaa Doobley ay tahay 618 kilomitir kuna baxayso 265.74 milyan kana soo xaroonayso 1.89 milyan dollar bishiiba. wadada saddexaad ma ogtahay wadada u dhaxaysa Xamar ilaa Balad Xaawo ay tahay 410 kilomitir kuna baxayso 219.3 milyan kana soo xaroonayso 1.26 milyan bil walba. anuu imaano tamarta oo Ilaahay nagu manaystay. ma ogtahay Soomaaliya guud ahaan in lagu tiriyo wadamada ugu fiican ee xagga solarka iyo hawada ama winka ee korontada laga dhalin karo. ma ogtahay inaad qoraxda iyo dabaysha aad ka heli karto 6 gigawatt oo joogto ah oo koronto ah oo haba yaraatee oo wax carqalada aysan jiri karin kadibna aad ku isticmaali kartid guryahaaga iyo warshadahaaga iyo ganacsigaagaba. ma ogtahay
in guriga ku filan marka solar qalabka solar loo rakiba la yiraahdo 5 kilowatt ayaa ku filan oo waliba qeyr caadi ah normally waxa ku filan guriga 3 kilowatt laakiin 5 kilowatt oo ah midka aad isticmaali karto qol walba inaad mukeyf ama AC aad gashato oo isla markaana koronto aad wax ku karsanaysid oo ku karra koronto ku shaqeynaya aad ka shaqeysiiso bishii oo dhan waxaad isticmaali kartaa 80 kilowatt oo halkii kilowatt qiimihiisa uu yahay 10 senti oo bishiina ay kugu soo aadayso $8 oo kaliya ma ogtahay 6 gigawatt oo koronto ah inay ka badan tahay Soomaaliya oo dhan oo maalgelinteeduna ay tahay $5 bilyan oo waliba exaggeration ku jiro ka badbadiyay oo ayna ka yaraata ay u badan tahay ma ogtahay marka korontada guryaha laga isticmaalo oo kaliya aan ka soo ururino lacagta oo guryaha oo $8 ah waxa ku soo galaya $32 bilyan 32 milyan oo dollar ayaa ku soo galaysa ma ogtahay 5 bilyan ee aad ku maalgelinaysid muxuu ahaa energy-gaas ama korontada qoraxda iyo dabaysha laga dhaliyo laba xilli oo galay aad beerta inay kugu filan tahay maalgelinteeda oo dhan ma ogtahay haddii shidaalka cunaqabateen lagaaga soo rogo qorax iyo dabayl cidna ayna kaaga soo rogi karin maaragtay oo koronto la'aan marna aadan noqon karin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gacantiisa ay ku jirto haddaba haddaan isku dardarno wadarta lacagahaas 4 project kaliya aan soo sheegnay waxa bishii ku soo galaya 2 bilyan 827 milyan 560 kun oo dollar ayay bishii ku noqonaysaa lacagahaasi oo dhan marka la isku dardaro aniga kama hadla operation costigi waxaas waxyaabo hoose laakiin total dakhliga soo galaya ayaa intaas noqonaya bishii sanadkii marka lagu dhuftana waxa ku soo galaya 33 bilyan 930 milyan 720 kun oo dollar oo almost lacagtaasi markii la isku celceliyo ay isku dhowdahay 34 bilyan oo dollar oo wadamada qaarkood ay budgetka wadanka dhan lagu maamulo ay ka badan tahay 3 laab ma ogtahay haddaan u qaybino lacagtaasi GDP ahaan ama gross domestic product ahaan aan u qaybino oo 1 milyan oo $1 ka bixiya aan u qaybino qof walba inay ku soo aadayso lacag ka badan 33 kun oo dollar bal ka waran haddii hooyada maskiinta ah ee dawarsata maalintii $1 kaasi baxsatay haddii iyadoo buushkeeda dhex degan loo geeyo 33 kun oo dollar oo la yiraahdo lacagta adiga iska leh maxay noqon lahayd haddaba gacmo wadajir bay wax ku gooyaan $1 si wadajir ah buu sharaftaada ku soo celinaya ogow $1 kaasi markuu jeebkaada ku jiro oo adiga aad haysatid faqiir baa tahay laakiin marka aad dadka isku darsataan walaalahaaga ah waxaad noqonaysaa maal qabeen ceelna nooma qodna kaalaya aan gacmaha isqabsano oo caalamka kalena aan tusaale lagu halqabsado u noqono haddaba sidee lagu maamuli karaa wax intaas oo 1 milyan oo qofna si wax loo dhaadhicin karaa si meel isugu keeni karaa si amaanada loo abuuri karaa si la isu aamini karaa ogow waligay allaha hal qof lama aamino taariikhii dhacay oo dhan dadka lacagaha laga dhacay waxay ahayd qof bay lacag u dhiibteen qofkiina wuu dhacay laakiin system markuu jiro haba yaraatee la isma dhici karo mana la awoodi karo qofka inuu dhaco kacdoonka dhaqan dhaqaale waa looma kala haraan cid ka xigsan kartana ma jirto mashruucani waa ma sahlana wuxuuna u baahan yahay dad gaar ah oo special people ah oo u bisil inay dadkooda iyo dalkooda ka samata bixiyaan hagardaamooyinka cadowga nala maagan yahay ee ah inaan faqrigan ku wada jirno oo kadibna nala kala qaybsado oo kadibna nala xukumo oo gumaysi toos aan galno waxaan leenahay aqoon-yahano daafaha adduunka ku kala baahsan ee ku wareersan meeshay arrinta ka bilaabi lahaayeen iyo siday u bilaabi lahaayeen iyo cid isu keeni lahayd haddaba qaabkee anigu mashruucani fikrad unbuu iga yahay laakiin qaabkii iyo maamulkii qaabka loo dhisi lahaa waxaan u baahannahay dad aqoon-yahano ah inay isu yimaadaan
oy analyze gareeyaan oy falanqeeyaan oo ay wixii dhiraandhiriyaan oo problemyadii jira ee ka hor imaan kara ay taxaan xalkoodii ama solutionadoodiina ay taxaan oo kadibna haddii problemkaas naga hor yimaado solutionkaasaan ku dayeynaa haddii uu xallin waayo kaasaan ku dayeynaa ay yidhaahdaan qaabkaas dad noocaas oo kale ah oo wada fariista ayaa loo baahan yahay oo maaragtay ugu horreyntii marka anigu waxaan leeyahay waa inaan soo xulnaa dad ehel u ahaa dadka ehelka u ah inay qorsheeyaan qaab maamulka maareynta iyo fulinta mashaariicdan dadkani waa inay leeyihiin aqoon khibrad niyad wanaag mukhlisnimo damiir wadaninimo asluub wanaag sumcad wanaagsan inay mujtamaca ku dhex leeyihiin oo taariikhdiisa nololeed ama cv-giisa uu nadiif yahay uusan wasakhaysnayn aqoon-yahanadani waa oo tiradooda koobnaan doonto waa inay wada kulmaan oo dood cilmiyeed niyad wanaag ku dheexan tahay ku sameeyaan sida ay arrintani usii wadi lahaayeen dood cilmiyeedkani waa inay kasoo baxaan asaasida guddi kala duwan oo soo daraaseeya oo soo diyaariya istiraatiijiyado kala duwan oo dhammaystiran istiraatiijiyadahaas waxaa ka mid noqon kara sidii looga dhaadhicin lahaa dadka fikradda noocan oo kale iyo in wax la wada qabsan karo marka gacmaha la isdul saaro qaabkii waxaa ka mid ah istiraatiijiyadahaas qaabkii ammaanada loo maamuli lahaa oo ammaanadana trustship loo abuuri lahaa oo dadka isu aamini lahaayeen $1 wax weyn ma ahan oo ka khasaaray haddii xitaa uu khasaaro wax weyn ma ahan laakiin dadka in la tuso ammaano iyo dad kaloo mujtamaca sumcad ku leh inay meesha ay ka muuqdaan istiraatiijiya waxaana ka mid ah qaabkii loo maamuli lahaa mashaariicdan haddaba aniga structurekan yarka ayaa sameeyey structurekan waxaa bedeli kara hadhow markay aqoon-yahanada ay dood wadaaga samaynayaan oo isu imaanayaan waxaa iri general assembly oo guddigii guud oo sanadka mar shirayay oo ay hoos imaanayaan xogeyntii maaragtay u diyaarin lahayd shirarkaas iyo guddigii board of directorka la dhihi lahaa ee xukumi lahaa dadka mashaariicda executive-ka loo yaqaano waxaana hoos imaanaya board of directorska agaasimaha guud oo mashaariicda iyo howlihii departmentyada dhan mas-uulka ah iyo hanti dhowrkii asadka dadka yani ilaalin lahaa isaga iyo macal ciidankiisii yani asxaabtiisii aqoon-yahanada kale ee xisaab xilma leh ku qaadi lahaa raggaasi oo wax maamulaya ayaa maaragta hoos imaanaya haddaba agaasimaha guud waxaa hoos imaan kara qaybta maaliyadda oo finansiga ah qaybta cilmi baarista research and development department waxaa imaanaya qaybta project unitkii ama qaybta mashaariicda fulinaysay waxaa hoos imaanaya public relationki ama xiriirkii dadweynaha waxaa hoos imaan kara qaybta procurementiga iibka iyo soo iibinta qalabka iyo alaabta iyo wixii loo soo baahan yahay ta kale logistiga iyo adeega guud iyo wixii kaloo markaas aqoon-yahanada fariisan doona ay ka wada hadlaan ama ay ku daraan hadday doonaan way bedeli karaan laakiin anigu suggestion iyo iqtiraax ayuu iga yahay midkaa isaga ahi haybad waxaad ogaataa haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarli-i wax ugu qabo kala cadday kalana saar aqoonta hadafka aqoontaada inay ku kooban tahay calooshaada oo keliya iyo inay tahay mid hadafkeedu u yahay in ummadda aad ka dhalatay aad ugu faa'iideynayso haddaad u gabanaysid armaad dhimataa daraaddeed ogow ilaahay subxaanahu watacaala inuu kuu qorsheeyey waqtigii goobtii iyo qaabkaad u dhiman lahayd waarimayside waxa ka haro ugu horreyntii ugu dambeyntii waxaan mahad gaar ah u celinayaa oo aad iyo aad ugu mahadinaya allah subxaanahu watacaala oo i waafajiyey ina fududeeyey diyaarinta iyo isku dubaridka bandhigan fikradeed kadib waxaan kaloo u mahad celinayaa asxaabteyda oo aad igu dhiirigelisay inaan dhammaystiro bandhigan iyo kuwa macluumaadka halkan ku jiro ila wadaagayba waxaa kaloo halkan ugu mahad celinayaa shirkadda Fizo oo facilitation iyo tashiilaadkeeda isiisay inaan mashruucan iyo presentationka aan soo diyaariyo waxaa mashruucaasi hadduu wuu socdaa dad badan oo maaragtay aqoon-yahanana way ku jiraan marka meeshii ayaan ka sii wadaynaa bilowgii ayuu sii marayaa marka qof kastana waa ila soo xiriiri karaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah